madaxweynihii waddanka Ciraaq ee geeriyooday Saddam Hussein waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ka dhashay Carabta kuwoodii ugu saameynta badnaa waxayna dad badan ku kala arag duwan yihiin shakhsiyadiisa. dad baa waxay u arkaan inuu ahaa dictator awoodda ku qaatay kol hore xukunka waddankaasi kuna maamulaya gacan adag oo bira qiyaastii 30 sano. Saddam Hussein ayaa waxay qaar ka mid ah dadyowga aaminsan yihiin inuu ahaa mid dhulweynaha jasiiradda Carabta ka bilaabay dagaal u dhaxeeya bulshada jinsi wadaagta ah ee Carabta iyadoo ay arrintaasi sababtay dhibaatooyin xooggan oo ka dhacay mandaqada jasiiradda Carabta. halka dad kale ay u arkaan inuu yahay halyahay marsoomar ah kaasi oo si weyn u maareeyay shiicada waddanka Ciraaq ahaana geesi sunni ah oo dad badan gaarsiiyay horumar kuwaasi oo ku nool gudaha waddanka Ciraaq. waxay sidoo kale in badan ay dadku aaminsan yihiin inuu ahaa geesi humaagiisa Carabtu ay ku diirsadeen kana hortaagnaa Iiraan iyo wadamo kale oo ku soo dhaadan lahaa wadamada Islaamka. waxayna geesinimadiisa ku tilmaameen inay soo baxday xilli hogaamiyayaal badan oo Carbeed ay ahaayeen ashunku adim oo ay aad u baqayeen. waxayna arrintaasi oo dhan oo noqonaysaa laba sheeko oo isweydaarsan aragti ahaana aad u kala fog. Saddam Hussein ayaa waxa uu dhashay 30 Diseembar sanadka markuu ahaa 1937 isaga oo ku dhashay tuulo lagu magacaabo Al-Awja oo ku dhow magaalada Tikrit oo ku taala waqooyiga Baghdad ee waddanka Ciraaq. waxa uu ka soo jeedaa qoys beeraley ah oo aad u danyar. aabihii ayaa geeriyooday isagoo caloosha hooyadii ku maqan muddo 3 bilood oo qura. waxaana sidoo kale waqti yar kadib geeriyooday walaalkii isaga ka weyn kaasi oo u dhintay cudurka loo yaqaan kansarka. Saddam Hussein ayaa waxa noloshiisa kafaalo qaaday adeerkii oo lagu magacaabo Khayrullah Talfaax kaasi oo dhaxda u xirtay sidii uu u korin lahaa. hooyadii ayaa geerida aabihii kadib guursatay nin ay qaraabo ahaayeen Saddam oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Hussein kaasi oo sidoo kale ahaa danyar isla markaana ilaaliye ka ahaa mid ka mid ah iskuulaadka Tikrit. waxayna Saddam kadib ay u dhashay 3 caruur. madaxweynaha laqmaday ee waddanka Ciraaq Saddam Hussein ayaa waxa uu ku soo koray nolol dhan kasta ay ka soo riixayaan waayo adag oo dhib badan. waxayna taasi ay ku sababtay in hareeraha wadooyinka uu ku iibiyo waxyaalaha fudfudud si noloshiisa iyo tan qoyskiisaba ugu maareeyo. waxana uu gaaray magaalooyinka Mosul iyo Baghdad oo ahaa meelihii uu ku qaatay noloshii harjadka. waxana uu muujiyay samir iyo dulqaad isagoo noloshiisa dadnimo ku kalsoonaaday taasi oo noqotay wadada kaliya uu kaga gudbay xaaladihii adkaa. qoraal reer Carbeed oo ka diyaariyay buug nolosha Saddam ayaa waxa uu ku tilmaamay mar uu ka hadlayay caruurnimadiisii in aanu weligii maqlin qof u dhigma Saddam Hussein xaggaad adayga uu si wanaagsan u dhameystay aqoontiisii isaga oo maraya waliba badweynta nolosha ee aadka u dhibka badan. waxaana uu kulliyadda xuquuqda ka bartay muddo 2 sano ah jaamacadda magaalada Qaahira ee waddanka Masar. kadibna waxa uu ku dhameystay aqoontiisii cilmiga jaamacadda Baghdad ee dalka Ciraaq. waxaana sanado badan kadib uu helay darajada aqoonta ee jaamacadda ee masterka isaga oo bartay cilmiga ciidanka sanadka markuu ahaa 1979. waxaana uu ka mid ahaa 50kii sano ee la soo dhaafay shakhsiyaadka saameynta adag ku dhaxlay bulshada weynta Carabta gaar ahaan dadka iyo dalka reer Ciraaq. Saddam Hussein ayaa waxa uu ahaa mid qabay fikirkii Jamaal Cabdinaasir ee ahaa in Carabta cudud iyo cilmiba loo mideeyo si ay u noqdaan taag muuqato oo aan la loodi karin. Saddam ayaa waxa uu guursaday gabar ay ilma adeer yihiin oo lagu magacaabo Saajida Khayrullah. waxayna u dhashay 2 wiil oo lagu kala magacaabo Qusay iyo Cadi oo ay ciidamada waddanka Mareykanku ay dileen sanadkii 2003 iyo 3 hablood oo lagu kala magacaabo Rana, Raqa iyo Xaala. Saddam Hussein ayaa waxa uu ku soo galay siyaasadda dhanka adeerkii Khayrullah Talfaax oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee waddanka Ciraaq isaga oo bartay qaar ka mid ah saaxiibada waalidkii oo ahaa saraakiil mug iyo miisaan ku leh ciidanka dalkaasi. bilowgii noloshiisii siyaasadeed ayaa waxa uu ku biiray xisbigii Bacth ee markaasi ahaa mucaaradka. sanadkii 1959 ayuu Saddam Hussein iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii Bacthiyiinta waxay sameeyeen isku day la doonayay in lagu qaarijiyo madaxweynihii dalkaasi Ciraaq ee xilligaasi Abdulkarim Qasim. hase ahaatee markii uu suuro gali waysay waxa uu u baxsaday dhanka waddanka Syria isagoo uga sii gudbay waddanka Masar
xilligaasi ay wehlinayeen ku dhowaad 500 oo dhalinyaro ah oo ay dowladda Syria ugu tala gashay inay dhameystaan aqoontooda. waxaana intii uu jooga Masar uu waday abaabul la doonayo in xukunka looga tuuro dowladii uu hogaaminayay madaxweynaha xilligaasi ee Cabdulkariim Qaasim. waxaana iskaashi uu la sameeyay saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee wadanka Ciraaq, taasi oo markii dambe sababtay in la toogto madaxweynihii la doonayay in xukunka laga rido. kadibna waxaa madaxweynaha wadankaasi noqday Cabdisalaam Caarif. Saddam Hussein ayaa markii uu ku soo noqday Ciraaq waxaa loo magacaabay madaxa sirdoonka ee dalkaasi, waxaana ahaa shaqsi firfircoon oo qabtay howlo badan oo muhiim ah. kadibna isfahmi waa dhanka siyaasadda ayaa waxa ay sababtay inuu muteysto xabsi adag, taasi oo sababtay in Saddam Hussein uu ka mid noqdo qolyo abaabulay afgambi ay ku guuleysteen inay xilka uga tuuraan madaxweyne Caarif, taasi oo sidoo kale suuro gelisay in madaxweynaha wadankaasi uu qabsaday Ahmed al-Bakr, kaasi oo waqti kooban kadib xanuun dartii shaqada uga tagay una magacaabay hogaamiyaha dalka iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadanka Ciraaq madaxweyne Saddam Hussein. Saddam Hussein ayaa markii uu talada la wareegay waxa uu kobciyay hanaankii dhaqaalaha dalka, caafimaadka iyo ammaanka guud ee wadanka Ciraaq. waxaana intii uu talada hayay uu dagaal adag la galay dowladda Iran, kaasi oo socday muddo ku siman 8 sano. dagaalkaasi ayaa waxa uu noqday mid haba yaraatee labada dal aanay wax faa'iido ah ka gaarin, isla markaana sababay dhaqaale caajis ku dhacay labada jamhuuriyadood. waxaana uu joogsaday dagaalkaasi sanadkii markii uu ahaa 1988. waxyaalaha laga dhaxlay colaadaasi waxaa ka mid ahaa dhibaatooyin naf iyo maal leh oo dhacay, waxaana ku dhawaad dagaalkaasi ku baxay 1 milyan oo ruux oo labada dhinac ah. waxaana sidoo kale sii dheeraa dhaawaca iyo maxaabiis la kala qabsaday. waxaana dhaqaalaha ku dhumay dagaalkaasi labada dhinac lagu sheegay inay gaarayso $100 milyan oo dollar. Ciraaq ayaa noqotay dagaal u joog, waxa uu madaxweyne Saddam ku fikiray inuu sameysto hubka nuclear isaga oo taageero ka helaya dowladda Faransiiska. waxayna Faransiisku sameeyeen xaruntii ugu horeysay ee nuclearka, hase ahaatee waxaa duqeyn ku baabi'isay Israa'iil kadib markii ay sheegatay in qorshahaasi uu halis ku yahay guud ahaan caalamka, gaar ahaan Sayyada. Saddam Hussein ayaa waxa uu dagaal kale la galay dowladda Kuwait sanadka markii uu ahaa 1991. waxayna arrintaasi noqotay in dowladda Mareykanku ay soo farageliso dagaalkaasi ka soconaya mandiqada Bariga Dhexe, waxayna jabiyeen ciidamadii Ciraaq ee Kuwait weeraray. dagaalkaasi waxay Ciraaq ku qasbeen sidoo kale dhaqaale burbur, waxaana hawada galay maciishada. waxayna Mareykanka Ciraaq saareen cunaqabateyn xoog leh oo saameysay shacabka dalkaasi. 11 Sebtembar 2001 weerarkii ka dhacay dalka Mareykanka kadib waxay dowladda Washington go'aansatay inay weerar ku qaado Ciraaq oo markaasi ay u arkaysay inay tahay quwad ka dhan ah oo saameyn ku leh Bariga Dhexe. iyadoo taasi laga faa'iideysanaya ayaa waxay ka dhaadhicisay xulufo reer galbeeda Mareykanku inay dagaal ku qaadaan gudaha wadankaasi Ciraaq. 20 bishii Sebtembar 2003 ayaa waxaa Ciraaq lagu soo qaaday weerar xoogan oo talada looga tuuray madaxweyne Saddam Hussein. maalmo kooban kadib markii la waayay, waxay warbaahintu soo bandhigeen warar naxdin iyo dhiilo lahaa oo sheegayay in 6 bishii Diseembar in laga soo qabtay god dhexdii beer ku taala gudaha magaalada Tikrit. waxaana xukun maxkamadi gaartay lagu soo eedeeyay madaxweyne Saddam Hussein dil wadareed laguna xukumay in la qaarijiyo, iyadoona la dildilay 30 bishii Diseembar sanadka markuu ahaa 2006 oo ku beegnayd 1 bishii Ciidul Adha al-Mubaarak.